ilmo yar oo 6 sanadooda aabihii dhintay hooyadiina ay ku hor xanuunsatay nafti kaga hor baxday ku hor sakaraatay ugu dambeyntiina hortiisa ku dhimatay koritaankii nabiga sallallahu alayhi wasallam meelo badan buu soo maray dad badanna way ka qayb qaateen kadibna qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdillaahi bin cabdilmutalib waa nebiga aabihii oo uu ugu jeclaa cabdilmutalibna carruurtiisa uu ugu jeclaa buu haayo qalbigiisa ugu dhowaa qorituurkii baa ku dhacay halkani waa Mehal Podcast waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Bilal Mustafa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaanu ka hadli doonaa taariikh cajiib ah taariikhan rabo qof walba oo podcastkan dhegaysanaya inuu dhamaysto taariikh u baahan inaad dhugato oo si wacan u dhegaysato taariikh kuu muhiim ah adiga iyo jiilka ka dambeeya iyo kuwa dhashayba waxaanu ka hadlaynaa taariikhda makhluuqii weynaa waa makhluuq ilaahay ka doortay khalqigiisa oo dhan dhammaantood waa makhluuq adduunka markuu imid mucjisooyinkiisa ilaa maanta la arkayo waa makhluuq dhammaanteen aynu maalin kasta 5 jeer ku xusna salawaadkeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة نبي صلى الله عليه وسلم إلا برتو أبترسينتيسا كأغمضا ما أنت وحينو دونينا بل إنينو أغانو تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم كخر انتو نندران مركو داشي للاش هذا كذب siduu ahaa taariikhdiisii intuu soo maray waxa uu inooga tegay iyo dhaxalkeenu maanta haysano sidii aynu u sii haysan lahayd maanta waxay igu martiya xalqadeena walaalkii cabdikhaaliq baashe oo aalaba aad badanaa social mediaha ka aragtaan idinkoo isagoo idiin soo gudbinaya qisas iyo tawaariikh iyo bawaanooyin wax ku ool ah kusoo dhawow Mehal Podcast walaalkii waan dhowahay Bilaal adiga iyo team Mehalba ugu horreyntii inta aanan wax kala gelin waxaan doonayaa halkan inaan cudurdaar amaba kelimad cudur uga jeediyo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxaan leeyahay cudran yaa rasuulallah naga raali ahow ma gaari karno maqaamkaagu inta uu gaarsiisan yahay ma gaarsiin karayno haddaanu kaa waranno haddaanu taariikhdaada ka sheekayno in aanu fulino oo keliya codsigaagii ama ahaa xadiiskaagii balliquu cannii walow aaya kaas oo aanu ku taagannahay mooyaan kelmadaha kooban ee halkan aan ka marin doona ma noqon doonaan kuwa xaqii aad lahayd iyo maqaamkii aad lahayd ku gaarsiinaya facudran yaa rasuulallah waxaan isku dayi doonaa inaan in yar oo ka mida taariikhdaadii aan u gaarsiino ummaddii aad uga tagtay dhaxalka ee aad u soo xiistay ayaanu isku dayi doonaa facudran yaa rasuulallah waan dhowahay Bilaal adigu iyo team Mehalna waan ku dhowahay podcastkaaga maanta waxaynu ka hadlaynaa dhalashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo xalqadeenan koobaad ay ku saabsanaan doonto haddaba bal in yar waxaad naga siisaa ka hor nabiga sallallahu alayhi wasallam intuunan dhalan bal siday ahayd taariikhda iyo caalamka nolosheedu bal siday ahayd xaalka ummadda adduunkan joogtay ka hor intuunan dhalan nabiga sallallahu alayhi wasallam bilaalow horta waxaan ka hadli doonaa maanta almakhluuq alacdam abuur ilaahay u abuuro kii ugu weynaa ugu qiimaha badnaa ugu fadliga badnaa saa markaan leenahay su-aal baa dadku isweydiinayaan carshiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku fadhiyo iyo maxamed yaa fadli badan xamalatul carshiga iyo maxamed yaa fadli badan samada iyo dhulka iyo maxamed yaa fadli badan kullu makhluuqaad sax yaa fadli badan المخلوق الأعظم مركز لقوليه ومحمد صلى الله عليه وسلم واصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء ودورش إلهي سبحانه وتعالى أوتورتي سمد يدلك يا عرشك يا مخلوق كستو إلهي سبحانه وتعالى أو أبوري إساها كفل البضن ساس مركز لنا هي معنيه بحويان وحين كهل لنا ما أنت وح إلهي أو أبوره كي أقوينا أي نكهل دونا ummadda carabtu
iyo ummadda kaleba caalamku nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu imanayay ee loo diyaarinayay inuu yimaado wuxuu ahaa meel fasahaadku isqabsaday, wuxuu ahaa meel diin la-aantu ay hadhaysay. caalamku wuxuu ahaa meel dilka, khamriga, qurun oo dhan, wax kasta oo qof bil'aadana ilaahayna subxaana watacaala uu nacay lagu haya buu ahaa. makaanka sidaa u eeg ee nooca ahaa ayaa loo diyaarinayay in uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in uu yimaado kadibna uu wax ka bedelo. maantana qof kasta oo xitaa halkan naga daawanaya uu u qurux badan yahay waxa weeyaan dadaalkii maxamed sala allahu calayhi wasalam uu u soo hagar baxay. balse in uu soo gaadho oo uu nubuwo loo soo saaro, nebinimo rasuulka sala allahu calayhi wasalam la gaadhsiiyo, tababar baa ka horreeyey, shaqaa ka horreysay, kadeed iyo dhibaato iyo cadaadis baa ka horreeyey. wuxuu soo maray rasuulku sala allahu calayhi wasalam nolol qof kasta oo bili'aadan ah oo maanta adduunka saaran ku soo noolaado oo ku soo noolaado nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxaas oo dhan waxaa loo marinayay si looga dhigo qaa'id, hogaamiye, waxa weeyaan ummadda hogaamiye oo jiheeya oo caalamka ka soo saara min adulumaati ila nuur. caasha yatiiman waynu arki doonaa, wuxuu soo noolaaday isagoo agoona, wuxuu ku soo noolaaday nolol faqiirnimo ah, wuxuu ku soo noolaaday nolol ciil iyo cadho ah, wuxuu ku soo noolaaday nolol carruurtiisu ay ka dhimanayso, wuxuu ku soo noolaaday nolol adduunka qofkii ugu jeclaayo khadiijo ahaa ay kaga tagtay. wuxuu ku soo noolaaday nolol qof kastoo bili'aadan uu soo galo xiriiri ah si uu u noqdo ayo maxamed sala allahu calayhi wasalam. haddaba taariikhdiisu rasuulka sala allahu calayhi wasalam way badan tahay. waxa iyaduna xusid mudan qof kasta bal cajaa'ibta nebigu sala allahu calayhi wasalam uu lahaa u fiirso. qof kasta oo nebiga sala allahu calayhi wasalam la kulmay walow bisaaca waaxida, maalin la kulmay, saacad la kulmay, sikin la kulmay, khallada allaahu dikrah. qof kastoo sikin la kulmay, maalin, saacad, ilaahay xuskiisu ku baaqi yeelay adduunka qofkaas, gaal iyo muslimkuu doonaa ahaado. waa mucjizooyinka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu iska lahaa. haddaba taariikhda rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay kasoo bilaabantay doorasho ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay nebigiisa. doorashadaasina isaga oo maxamed sala allahu calayhi wasalam dhulka iman ayaa aabihii la doortay. nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam awowgii cabdilmudalib waxa uu dhalay oo wuxuu ilaahay nidar ugu qaaday haddii uu 10 wiil dhalo inuu mid ahaan gowracayo. waxayna ahayd dhaqan carbeed oo waagaa jiray ayuu ahaa. ilaahay baa uu rumeeyey oo wuxuu dhalay 10 wiil ayuu dhalay nebiga sala allahu calayhi wasalam awowgii. 10kii wiil markii uu dhalay dee Quraysh waxa weeye xeerka iyo nidaamka iyo waxyaabaha noocaasa way ka dambeyn jireen nadarka. waxa waajib ku noqotay maxay in uu 10kiisii carruur ahaa wiilahaa inuu mid gowraco sooma. waxaa lagu gowracayay markaa ma ahayn doorasho isagu uu dooranayo, wuxuu ahaa qorituur buu sameynayaa, kii uu ku dhaco ayaa la gowracayaa. qorituurkii buu sameeyey iyada oo Quraysh oo dhan ay daawanayso. kadibna qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdillaahi bin cabdilmudalib, waa nebiga aabihii oo uu ugu jeclaa cabdilmudalibna carruurtiisa, ka uu ugu jeclaa buu haayo qalbigiisa ugu dhowaa. qorituurkii baa ku dhacay. dabadeedna wuxuu yidhi waa lagu celinayaa. mar kasta uu ku celiyana 10 geela ayuu ku furanayay. 10 geeloo ka mida geeliisa ayuu bixinayay si uu qorituurka uga badbaadiyo waxa weeyaan gowracaas. wuu ku celiyey haddana isagunbay ku dhacday. wuu ku celiyey haddana isagunbay ku dhacday. 10 mar ayuu inta uu ku celiyey 100 geela laga qaaday oo 100 geeluu ku furtay. 100 ibil ayuu ku furtay.
cabdillaahi bin cabdilmutalib si uu waxa weeyaan muhiimadiisu isaga way gaabnayd adduunkan muhiimad kooban buu joogay muhiimadda kooban ee u joogay ilaahay waxaas oo dhiba uga ilaalinaya waxay ahayd in uu yimaado aamina bintu wahab guursado maxamed sala allahu calayhi wasalam uu waxa weeyaan dhalo muhiimadda uu u joogay adduunka intaasay ahayd cabdillaahi bin cabdilmutalib wuu koray si wacan buu loo barbaariyey ganacsadu noqday waxa weeyaan wuxuu guursado ay isheleen aamina bintu wahab oo ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii markii ay saa isu guursadeen cabdillaahi wuu safray safar buu galay laakiin safarka uu galay wuxuu ahaa safar aanu soo laaban doonin safar bilaa cawda wan way tegid buu goostay aanu dib u soo noqon doonin balse muxuu kaga tegay adduunka raad waxa uu calool galay nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu baxay already isagu muhiimaddii ilaahay ugu keenay adduunkan uu qabsaday shaqadaas uu tegey wuxuu aaday waxa weeyaan meesha loo yaqaano yathrib waagaa madiinada yathrib baa la odhan jiray kadibna halkii buu ku geeriyooday nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu agoon noqday isagoo caloosha hooyadii ku jira halkaasaa dhibaatadu uga bilaabantay intaa wixii ka dambeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadku markii ay ahayd 517 miilaadigu markuu ahaa bishii abril ayuu dhashay markay bishii abril ahayd ayuu dhashay sanadkaa waxaa la odhanayey sanad aad u mucjisooyin badan buu ahaa caamul fiil baa loo bixiyey sanadkaas wuxuu ahaa sanadkii lagu soo duulay kacbada ninkii la odhan jiray abraha iyo tiimkiisii uu watay maroodiyaasha watay ay damceen inay kacbada gebi ahaanba burburiyaan oo ay ka takhalusaan wa arsala calayhim tayra nabaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin maakul ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu diray fariintaas maxay ahayd dhulka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku dhashay inuu yahay dhul barakaysan oo la ilaalinayo oo ilaashan oo gaashaanku u xidhan yahay aan cidina soo dhowaan karin fariintaas ilaahay subxaanahu watacaala diray marka aayaadkan la dhegaysan doonaa waa mar nebigu uu nebi noqday laakiin markan laga hadlayaa waa markii uu dhashay saaba wax weeyaan uu u dhashay nebigu sala allahu calayhi wasalam koritaankii nebigu sal allahu calayhi wasalam meelo badan buu soo maray dadad badanna way ka qayb qaateen xaliima sacdiya waxay ahayd mid ka mida waxa weeye dumarka adduunka ugu nasiibka badan balse waqtigaa iyadu ay joogtay may malaysanayn qofka ay korinayso nebiga sala allahu calayhi wasalam markii aabahii dhintay ee uu dhashay waxaa jirtay caado carabtu ay lahayd oo ah ilmaha yar marka uu dhasho waxaa la geeyaa miyiga kadibna dumar baa kusoo naasnuujiya si ugu soo adkaado dhaqankooda u soo qabsado inta uu korayo dabadeedna carruurtii magaalada dhalatay dee mid walba gabadh baa qaadanaysay sooma nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa bilaa aabe dumarka oo dhan baa ka yaacay markii waxa weeyaan carruurta la qaadayay way ka yaaceen dumarka oo dhan sababta keliya uga yaacayeenna waxay ahayd in uu bilaa aabe yahay dumarkan dee mushahar bay doonayaan sooma cid waxa weeyaan lacag siisay rabaan oo biil siisa oo ya way ka wada yaaceen sababtoo bilaa aab buu ahaa waxay ka cabsanayeen yaa lacagteedin siinaya yaa waxweeye idinku ilaalinaya yaa nafaqadiisa iyo waxaas ya way ka wada yaaceen xaliima sacdiya u soo hadhay iyaduna no option bay ahayd already isagunbaa soo hadhay inay qaadato keliya ahayd already way qaadatay xaliima sacdiya may fileen inay qaaday oo ay naas nuujinaysay waxa weeyaan qofka adduunka isbeddelka noocaasa ku keeni doona markii ay saa u qaadatay mucjisadii gurigeeda ku bilaabmay barakaa la socotay nebiga sal allahu alay wasalam risiq waxa weeyaan irsaaqad aanay weligeed aragun bay heli jirtay uun dayay gacanta ku haysaa waxay gacanta ku haysaa shakhs muraaqabatullah fii qabdatillaah
malaa'igta oo dhan waxa weeye junuud ilaahay subxaana watacaala uu u diray ay ilaalinayaan ayay gacanta ku haysaa ma malaynayso iyadu laakiin maalintii ay ugu mucjisada badneed xaliima sacdiyan kaaga waramaya nabiga sala allahu caleyh wasalam oo carruur iskala ciyaaraya oo waxa weeyaan iskaga jira waxa weeye noloshiisii carruurnimo ayaa waxaa soo degay malku jibriil nabiga sala allahu caleyhi wasalam buu soo qabtay waa ilmo yaroo carruur ah ilmo yaroo carruura ayuu waa 4 sano ilaa 5 sano jira maba weynaba 4 sano 5 sano waad garanaysaa ma soo qabtay carruurtii kale la ciyaarayaa ma arkaya iyagu dee carruurta yar malaa'igta iyo waxaas laabtiisaa soo jeexay xaadithatu shaqi sadr qalbigiisu soo saaray cad yar oo qalbigiisa ka mid ah ayuu ka saaray muxuu yidhi waa qaybtii nasiibkii uu kugu lahaa shaydaanku ayaa laga saaray qalbiga nabiga sal ly slam waa la maydhay camaliyad ghaziil baa dhacday ghaziil waa la maydhay kadibna qalbigiisii baa lagu celiyey meeshiisii dib baa loo tolay mush macnawi may dhicin xarfi bay u dhacday xarfi yacni markaan ku leeyahay xarfi bay u dhacday nabiga sala allahu caleyhi wasalam markii uu weynaaday saxaabadu way arki jireen raadkii tolmada halkaasaa laga arki jiray toos camaliyad caadiya beh carruurta yareed baa yaacday marka waxay u tageen xaliima sacdiya maxamedun qad qutil maxamed oo la dilay u dhintay dee waase iyagu aaminsan yihiin u dhintay xaliima sacdiya aad iyo aad bay u warwartay way soo oroday way timi waa maxamed oo caadiyaba aanay waxba ku dhicin way warwartay marka waxay damacday inaanay hooyadii iyo dee dadkiisii aanay u sheegin laanno haddii ay u sheegto waa laga kaxaynayaa gurigeeda maxaa ka baxaya barakadii iyo wixii ay ku qabtay baa ka baxaya way qarsatay marka halkiiba iyaduna ay ku qarsatay waxay ka mid ahayd mucjizooyinkii waxa weeyaan ku dhacay nabiga sala allahu caleyhi wasalam intii uu yaraa intaa wixii ka dambeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waxaa loo soo celiyey hooyadii aamina sheekada ugu xanuunka badan ee runtii aniga saamaynta aan caadiga ahayn ku leh waa sheekadan soo socota rasuulka sala allahu caleyhi wasalam markii hooyadii uu dib ugu soo laabtay ula noolaa hooyadii waxay damacday in ay u geyso abtiyaashii oo yathrib jooga sidoo kalena uu soo booqdo qabrigii aabihii ay soo eegaan waxay ka mid tahay inta aanan qisada gelin biriga waxaa loo yaqaano innaga dadkeenu ma yaqaanaan gabadhaasi waxay 400 kilomitir u lugeynaysaa ay u soconaysaa u safraysaa in ay soo eegto qabrigii zawjkeeda oo mar hore geeriyooday min albir ay ka mid tahay innaga ma yaqaanaanba dad badanoo dad ka dhintay baa jira haddana waxa weeyaan marka muddo yar laga soo wareegto haddana aanay dib u xasuusanaynin waxa laga yaabaa inaan niyadoodaba duco ahaan xitaa aanay kusoo dhicin aamina bintu wahab casharkaas wuxuuna barayaa qof kasta oo noloshaada qaali ku ah ama baal dahaba ka gala in aanad ilaawin xuskiisa ee aad mar walba duco booqasho waxaweye aad ugu tagto okay aan ku soconno aamina bintu wahab waxay u kaxaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qabrigii aabihii yathrib waxayna kaxaysatay khaadimadeedii way baxeen yathrib bay tageen aamina bintu wahab meeshii bay kusoo xanuunsatay magaaladii yathrib ahayd waa nabiga sala allahu alayhi wasalam hooyadii cidaan iyada ahayn ma haysto halkii ayay kusoo xanuunsatay kadibna waxay go'aansadeen in ay kasoo laabtaan meeshii maadaama hooyadii ay xanuunsatay xanuunkii wuu kusoo farabatay way soo baxeen jidka markay marayeen xanuunkii saa'id buu ugu batay nabiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii isaguna ula socda 6 sannadood oo keliyu jira ilmo yaroo 6 sannadooda agoona hooyadii ku hor xanuunsanayso cidaan iyada ahayn aan haysan cid ka dambaysa aanay jirin ya bal shucuurkaa sawiro
إمام الغزالي رحمة الله عليه وحليه بقي الرسول صلى الله عليه وسلم كشجرة في الصحراء لا ترجو إلا الله لا ترجو إلا الله قيد ميل صحراء كدح بحي كلي كهري وأن إلهي سبحانه وتعالى عدنا هيرجيني قيد ميل صحراء كبحي محاد كفرنس عدبا بيهينيسا عدبا ورابينيسا عدبا نفقينيسا وامي عليه أفضل الصلاة والسلام وحو هيستي هو يدي وكلي هو يدي نجتكي مدينة إيو دحي مكة أيكو حنوص ميل أدوم جرتو قبل كلي على صعوتها هو يدي ويكدو سكرات مرك النبي صلى الله عليه وسلم waxay aragtay xanuunkan inuu yahay xanuunka ay ku geeriyoon lahayd ay ku baxaysay nolosha kale nin weyn wadkii waa yaqaanaa Soomaali aragtay xanuunka inaan ka kacayn rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu dul taagan Aamina bintu Wahab meeshii way ku geeriyootay meeshii ay ku geeriyootay rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam halkii uu rajay iyo haboon saxaraha dhexdoodii ayuu ku noqday garab baa ka maqnaayay labadii garboodba way go'een wuxuu soo istaagay cidla ciirsila ilmo yar takhayal xabiibi billah calayk ilmo yar oo 6 sanadooda aabihii dhintay hooyadiina ay ku hor xanuunsatay nafti kaga hor baxday ku hor sakaraatay ugu dambeyntiina hortiisa ku dhimatay gabadhu markay sifeynayso khaatimada waxay leedahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam siduu u ilmeynayay maalinkaas yani lama cabiri karayo xabiibi شوف العلاقة بين أمه إن أنا دمانين حريرك كدحية بعد 50 سنة هو إساقه نبي النقضي باللحية كنتون سنة مركو جرو بعد 50 سنة أيوه حصون نقضي إساقه آلاف وآلاف جنود مقنعين تذكر بعد عصفر ضبطة وحوق بدن الدنيا ذا مركز وأن تشوشين كرتاني جرين أو فاتحة oo isagoo furashadii waxa weeyaan markaa u socda ayuu soo galay waxa laga filaa dadka waxa weeyaan marka ay awood helaan kibir waxay doonaan sameeyaan markuu saa u soo galay ayuu saxaabadiisii iyo askartiisii iyo ciidankiisii wixii intuu dhinac iska dhigay ayuu wuxuu toos u qabtay qabrigii hooyadii markaasuu wuxuu ka dul ooynayay muddo أين هذا قياس كريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكدل الميني رسولك عليه الصلاة والسلام يعني حسوس نيدي سعالقة يعني كو أهيد وهو حويا انت كو حدني ونتقدونا يودي حلقة لها التنبين ونتقدونا ومعلم بمير بين مرينا النبي صلى الله عليه وسلم بحلقي هو يديك وكيريوتي وكانت أعظم مصيبة يعني حلقة قاعدة وقبل بقى سوق حيث النبي صلى الله عليه وسلم واحد يبقى سوق على مكة نبي عدنا ماله لكن حاول شوقي عبد المطلب أبوغي وحوش على أبيه صح؟ أبيه وكريودي ما أنت نبي هو يدي مركي كريودي أبيه أبوغي بقى عن تقول لي مركا markuu guriga soo galay awowgii weydiiyey hooyada aaway nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ilmay marka uu gartay in haweeney dhimatay gacantuu ku qabtay marka awowgii isagaa garab iyo gaashaan u ahaa isagaa waxa weeyaan cid walba waxa weeyaan ka hortaagnaa wuxuu u baahnaa oo dhan buu siiyey maadaama uu aabihii jeclaa sooma oo inankiisa isagu ahaa jeclaayo ya waxaasoo dhan ayuu u samayn jiray haddaba su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu koray weynaaday carabna uu dhex galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo noqday ari raac marka uu soo noqday macnaheedu waxa weeyaan nolol adag buu ku noolaayo aan ahayn waayo dee qof hantiila ah ari raac muu noqon jirin nolol adag buu waxa weeyaan ku noolaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii yatiim la soo mariyay dhibaato dhan soo maray
ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wawajadaka daalan fahada wawajadaka caayilan faaqna. markaasaa ilaahay uu la dardaarmayaa wuxuu leeyahay fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar. waa xaalado uu nebigu soo maray. waxaa leeyahay qofka agoonkaa iska ilaali, qofka wax ku weydiista gaar u eegad. waa xaaladihii marxalado uu soo maray. waa markan ku leeyahay waxaa loo diyaarinayay in uu ummad hogaamiyo, sababtoo marxalado badan buu soo maray. marxaladan ari raacnimadu markaa waxay ka mid ahayd maraaxisha uu soo maray rasuulku sallallahu alayhi wasallam, oo wax badan buu kasoo arkay. waxa weeyaan ammaana loo dhiibay, markaa ammaana ayaa loo dhiibay. carab oo dhan baa markaa isu sheegtay nebiga sallallahu alayhi wasallam inuu ammaanadii ilaaliyo, waxa loo sheego uu dhowro, beenta aanu aqoonin aanu sheegin, waa laysu sheegay. marka maxay u bixiyeen assaadiqu alamiin. waaba intaan nubuwadiisii iyo lasoo saarinba assaadiqu alamiin bay u yaqaaneen, kii run sheegga badnaa, sidoo kale ammaanada ilaalin jiray. markaasaa marka dee waan gaari doonaaye lasoo saaro oo nebiga sal ly slam la doortay, ilaahay uu waxyi kusoo rogo, uu quraysh lasoo dhex galo, qaar badan waxay ku raaci doonaan waxa weeyaan inuu amiin ahaayo uu run sheegay. habeenkii la dheelmiyey waad garanaysaa, abubakar bay u tageen. markaasuu abubakar odhanayaa maxamed been muu sheegin, waa runtii. abubakar muu ogeyn inuu nebigu dheelmaday oo israa micraaj la sameeyey oo habeen dhan uu wareegayo, muu ogeyn. laakiin muxuu u saleeyey nebigu yaqaanay. sifadaasi markaa waxay ka mid ahayd sifooyinka rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu lahaa. markaa nebigu sallallahu alayhi wasallam markii uu shaqaystay, waxay isheleen adduunka gabadhii ugu jeclaa, noloshiisana qayb ka mida soo qaadatay, khadiija bintu khuwaylid. nebiga sallallahu alayhi wasallam markii ay khadiija bintu khuwaylid isheleen, noloshiisa waxay noqotay nolol ka duwan nololihii hore. already wuxuu ka soo baxay marxalad cusub buu yimiday. marxaladani haddaba way ka mucjisooyin badan tahay marxaladihii hore. wuxuu gelayaa oo isu diyaarinayaa iminka oo loo diyaarinayaa in fariintii ilaahay adduunkan u keenay loo xambaariyo, dhakada loo saaro. haddaba fariintaasi siday ahayd, culays nooceeye bay ku keentay, maxaa uu kala kulmay, mucjisooyin nooceeye bay khadiijo ku aragtay, badanaa. intaa iyo inka badanba waxaynu ka arkaynaa xalqadaha soo socda insha allah ee silsilada makhluuq alacdam, amaba abuure kii la abuuray, kii ugu weynaa, kii ugu markaasi mudnaa, kii ugu baraka badnaa. aad baad u mahadsantihiin. waxaana rajaynaynaa si aad silsiladaha kale ula socotaan inaad xalqadan sheer garaysaan, inaad la socotaan meehaal, ood subscribe garaysaan, ood la socotaan markasta xalqadaha iyaga cusub. aad baad u mahadsantihiin.